qorigii sanafarkee aanu furannay iyo qorigii iyo laba barduleel iyo saddex midkood laba barduleel horta waan baa meesha kula soo noqday habeenimo iyo boqol يلا waxaan ku ilaalinay yahay ciidan buu ah wixii uu naga soo daba socda wuxuu ilaalinay taab qorado ciidan ku horeeya gaadho kafuurkan meeshan haarta ayayna ka jeexin qorsha xulan qorsha mugtisan baa ilaahay koror layn kaar koror si tuulo xulay oo meel yar la fadhiistay anagoo aad kulkaan loo tooganayo anagoo kulka aanu iyaduna ay dhabanta kala saarantahay godkina madaxeedu ku soo dhaadhacay anaguna intaanada ugu dambeysay godka ku jiraan qaybta kalena ay dhabanta ay ka sii jeexayno aad noo tooganayso intuu geed meeshan oo xagar oo dam ah iyo la galay qoriga isagii nin Cabdullaahi Roomada loo jiro qoriga caawiya waxa aad buu u laayay hadaba waxa weeyeen aad u shish badan waa qorigiisu laba hal oo beekay ma israacinin raahayo Allah sahla loo jiray Abdi Yusuf inuu ahaabaan hebel Yusuf magaciisa Ahmed Yusuf Abdi Yusuf oo salaxadaha oo macallin tababaraha wuxuu arkay asarkii ragii dagaalka naga haro fara badan bay hayeen waxay arkeen isoo raadi dhageysanayo wuxuu yiraahday haba la kala qooste galabta inaan Itoobiya isla fiicnaan lahayd waa maxay baa wuxuu yiraahday iyagu og inuu gurmadi noo imanin oo rasaas iyo hubla nagu caawin galabtan inaan isla fiicnay xasiin qaraxmayba anade saaxiibkay oo dhaawac geed hoosti kaga yimid iyaduna gabadheeday bala xishoonaysa ninka gabadha qaba inuu meel qaawan u seexay anoo miyir laba oo doorsoon baan qoriga furtay baan ku fur gacantaada gacananayn ruuxan aqalka ku furmay baa imaaday maamulkii kale iyo tii wiilkan ku fadhiday qadiyahan horutan oo socota oo aniga igu soo noqotay baa hore ugu sii bitaacday dhabar jabiyeen oo farqi iyo dhulka anoo markii hore gaalada ku cayrsanay dib ugu ula daaciyeen anoo saan buu talaabay farqi dib xuliyay hoos xuliyeen yahay kuwa waqtigeedii baa la jees hal wiil oo qorax loo oran jiray يا دغالكي نغوشي waliba dhaawacni buu shiiday dhaawacyadii waan soo keenay walba ragii ka dhaawacnay dhaawacii markii la soo keenay ka fiiri baa inuu rakaan maqan yahay kale ilaahay amarkiisa aanu labadii wiil baa iga dhaawacmay hore waxda ma iga dhaawacmay labadii wiil baan arkay bas waa waxaan dhaawacay wiil yahay Axmed Nuur dhaawacay wiil waal Axmed Guure kolkaas saddexdanada oo ugu baa dagaalka weyn ee u bacda galay dagaalkan dambe ee hurmaha kariyo ururada kariyo gurmadka ay ku soo gareen mooyee dagaalkii habeenkii ay iska habayaaq ah mooyee injihada lahaynayde tu xaga loo cayrsanay tu kala dabra gooyni qolo kale isaga gali nooc wuxuu ahaa iltihaamul harbi oo waxay dinimo ku qorshaysteen ma ahan in la dagaalamaan meena qorshaysanin in la qabtaan bay qorshaysteen xarkii baa la idinku wati xarkii baa nin kasta oo disho xarigii baa halka ugu xidhan ama nool qaban xarigiisi waa halka ugu xidhan hadaba nimanka waxyaabaha ugu badan ay ku jabeen wuxuu ahaa inayna dagaal qorshaysanin rag inay soo qabtaan qorshahoodu ah orod bay ku socdeen waxyaabahan aad la yaab u ahaa ma General Mulukete ciidankiisa aan ku arkay wuxuu ahaa ciidanka Itoobiya waxay ahaan jirtay haddaad idinkoo 3 nin ah 10 nin la dagaalantaan ninkaas inaad aragto xabadiisu meel ku dhacayso ma dhici jirin ciidan wuxuu ahaa aan tababarayno xabadoodu meel ku dhacayso ma arki jirin xaqiiqda dhabta ciidankan ninku xabadu ridayo ama maradaada ku dhacay ama labadaada lagu dhaxdooda ama horta wajigaaga ku dhacay ciidan tabarkiisu u dhameystiran yahay wax dagaalkii habeenkii waan ka baxnay waan isu tagnay meel baan tagnay waxaan maqalay qori aad meesha uga dhacaya nin dhalinyaro oo yaro cusbaaba wiil baa dhaawacmay naftuurihii Maxamuud Goore ka dhaawacmay naftuuro kale uu yiri qaad naftuurihii kale markuu qaad yiri intuu qorigii ka bedeshay uu watay qumbu wuxuu arkay un xabadii oo si fiican u dhacay uu qiirooday xabadii mu sii galay Maxamuud Goore habeennimadii markuu imaadayna rag cusub fara badan baa meesha dhaawacay oo ninkii cusbaaya gadhka weynaa ee noocaas ah uu tilmaamay uu joogaan baa ani naftuuro iga dhaawacmay oo maxaan ku dhahay Cabdiwahaab Dharaasho la dhaho oo labadii wiil iga dhaawacmay aha mid ku moodeen kana nin madow oo gal loo ah kana mid madow gal loo labadoodan laba nin oo xilligada hor leh ahaayeen
وكان أبو مودون كيسا كلام حبيني مدي ويلك حبدو في باقة وان قرنيني ضاوع أنا جاي هنا أنا قاعد ضاوع ماي ممكن يكرن حبيني مدي إذا كبل فيلي تليه قيبته الله يرحمه يمكن لو رنشري بال كريقان با إذا بقولن وقرقي سنفر كي عنو فرني iyo qorigii iyo laba bar duleel iyo saddex midkood laba bar duleel horta waan baa meesha kula soo noqon habeenimo yabqolni intanadii kale meeshan deganaada bilaa ka kicina bartan aan ku imanaya iska sii wax karsada wiilkii oo kolka shiiday meedka aasta booro oo taliye hurinaha taar buu siiyay iskaarsiintii taarka ciidanka rag lixdameeya يانا دوري كنت أنا ما قرنايه فقدوا كنتون كبلان يقدري حين هذا واحد ناوعه لما بحاول واحد قال إيه هي للسي حال أظن من الهبلاء إنه بلنا ناوعه قاضو ناوع إيمانك ناوع مي نكاس الجوريتي تاركي سنة وقعتي أجن دجال كقد عينا أجن وجوليسين هاي هبين نمو كنحبه أنا قبل ماشي أسكت دجنين رورتي ودجال ماشي قبل الوضع دجال بكرد عين wiilkii bay soo haloodeen axmaarada kale oo gurmadaha oo meesha timid beeroorti isku laayeen way caydsadeen wiilkiina soo haloodeen habeenkii meena wax gaaliya xoog gal meesha habeenkii meesha iska seexday wiilkii xitaa meena raadininba markay meesha seexdeen beeroorti iyagoo kala haadaya gaalooyin kale oo kala haadayaan oo xalay kur fadhiyay bay isku soo baxeen axmaaradii bay isxabadeeyeen qoriyii waaweynaa bay ku rideen way carartay qoriyii waxbay ka furteen habeenimo qoriyo naga qarsoomay annagii bay meelihii ka soo qaateen wiilkii bay soo qaateen ay soo heleen يوجو ويلكي وذا إنه يمادين صبح أنا وراشين سيكر صنّي أو شاه سيكر صنّي أو وحويان سكت يارس إلهي أمر كيس الله شيء بنا عاونا يو كلهم وقت كيس مرة بانين ورصة وحنو تالي سكر أظفر بدن يراشين نوال بعد بكيش وتي أما جويس أما معويستي سو حقوق التالي سكر بكبر حسدي يراشين صح سيب سكر بكبر حسدي نوال بنا بايل كيس الرصاصتي ديرجا هيدا لا عصي مويني وحي كلام أبو وقتها واحد فرتين نواد واحد فرنا واحد عصني مي وحي كلام وضعنا صبحي أنا وصعنا أو عن أهرينه أنيجا ابن عبد الوهاب حاشي ليلة هذا يو نكي أحمد نور حيش صدق حدا عن أهرينه وما ملك عيدا كيا وحنا رجني عبد الوهاب بكل كواهجان كده عليه قط يا وحنا أرجني عيدا بور هرتنا لا دريس حدا بدو وقف يا كرنا ربنا كذا لأن تقال كان مركان قال لي هذا نصبح نوال قيمي تقول الله ينسى تقول يا نلاد كره كان كأدرين وأجان كأدرين وأنا أرنا وروح المعاد ومعيدا كأنه والما يقول لنا حال دعوة على قاعدة وشو ماشى وحال ميلان سعيد ساك ماشى وأمرنا والما عيدا كمان الله كره كره مدكته كدعنا أنا صدق هذا نروح نروح نصوف سنة مريا صدقيني بس صدقني كده وسؤال أني وكسوس عنا ويسكانات تصطي ويستاجيان وروح شو وقاله كل بقى ورحم بيخربين كسوس فده كل سوى نعرفها كل كان هاست كسر قالوا سود وانا خبصنا إنه عدو يعني بس كسر نقول حبتكم أنا أيضا من يقولون أيضا من يقولون بس كسر نقولنا وحقدم بيعيدا كنفتوره تريو نوجها يلورين تري حاش نبور أتعب واحد كل واجد دم سو طريقة يبتك أكوشيدي يا الآد جوب وهابا يا عيدا كقدم هي أنكتيس السجي ما نسوق عنه مركز سام حن العناي عشان بورا وحي قال واحد وين رجع صوت على عضاي أقول بس السجي وحوس قال لي حري حيد وضد ثان كله حنا أنا مريم مرقورنا أنت نسوق عليه نقولكوا جو كمشي جي مرحا وقوي على أنا عادي هين قرابك جيت قطعتي بس كذا ساعدهم بلوس كبرتوا أنا وأنت تليه قيد كانوا تجي بيلا وحنا كل هذا النية هو أيضا بوح وحي وننقص صوت مسحوة يقول هذا تاب قرضة أيضا كأهر هي جارو كفور كان ماشان هارت عينه كتشيحني كشة حلان كشة مكتئب كر الله ينكرن كر الله ينكرها أما اللي ينتوجني فهم سيا مركان وجود كان أنا وكل عداني دام أنت كلي يقول وجود كان قدام بي تاجنين يصاف ولا يام labada dhamaan hadda uu kashaf waxa ku jiray dhir bayleedo laba toogan ka meelada luqluq iska mari bas saas u dusha u jeex laakiin hada gafuurka dheer ku agaagto wada toogan qoriha dhaadheer anigii wiilashii baan u tagay
qolyo kale oo maamul ahaa baan dhexda ku sii maray oo Elber iyo Cabdirwaa iyo oo geed hoos fadhiya oo ciidanka hore ee buurta markay fuuleen ee ka hadheen waxaan ku yiri beela saa yiri haye orod bay ugu dhaxeen oo wiilasha buurta dhabanka foorkiisii fooshan ee ka leexay hadda leexataan goshan xulo gosha ka jeex anigi meesha wiilasha ka leexiyay maana kula leexanin dhabantii baan karigi dheereed baan sir hor inta u foosho haarta soo fadhiiso oo kaga rid markay godka ay wiilasha ku soo dhaadhacaan labaashu nidaba ordayso de naga ma ayna harin ba tuna kari kana soo marnaa ma ayna soo marin meel meeshan oo kale to buur dheer ka soo daalatay aniga dhabantii saadaan u fuulay iyo durba shiishkii qabsaday waba lay toogtayba ciidankii kaloon xabadiba ku bilaabmeen qoriya sanay farbud agtayda oo maradayda oo saa waan orod ku jeexbaan sir waan mari waan socon waay soo lagada dhowr jeer geed weyn ma salka ka galay oo cufan oo banaan lahayn oo meel laga toogta lahayn geedkii baa iskaga jiray wiilashii ragga taliska ciidanka kamid ahaa waa goshii bay xuleen anna dhabantaa markaan ka jeexaynay waxa ku dhaawacmay Cabdi Xasan Khaliif Cabdirwaa oo markay gosha xulayeen inuu gafuurka dhabanihii kale midkood ka jeexay ma garanayay meelahaas ku dhaawacmay goshii markaan soo talawnay naftuure Yaasiin dheeraloolin jiro shiido Yaasiin haybaloolin jiro oo ciidankii baadhaman ahaan jiray warin aad tabaran qoriyaha waaweyn oo Yaasiin dheeraloolin jiray Yaasiin haybe in haybe Cabdishuuq Allah yarxamay oo shiiday waagi dambe doole ku shiiday oo degmada Laasinkayrna gudaheeda ka soo baxay ciidankii baadhaman ahaan jiray kolkii dambana jimada raacay yaa wuxuu sameeyay qurbeek ama ku qoraa qoriyaha waaweynna ragga Itoobiya bartay buu ahaa waagi ay Eritrea la dagaalamayeen markan xirfad sare qorigan kula buu ahaa waa ugu labada dhinac jabaduna tababartay oo waliba ugu qoraan jiray in badan cadawguna kulkii qoriyaha waaweyn buu baray qorigii buu dhabantii tulo xulay oo meel yar la fadhiistay anagoo aad kulka naloo tooganayo anagoo kulka aan iyaduna ay dhabanta kala saarantahay godkiina madaxeedu ku soo dhaadhacay anaguna intaanada ugu dambeysana godka ku jiraan qaybta kalena ay dhabanta ay ka sii jeexayno aad noo tooganayso intuu geed meeshan oo xagar oo dam ah iyo la galay qorigii isagii nin Cabdullaahi Roomada loo jiro qoriga caawiya waxa aad buu laayay hadaba waxa weeyeen aad u shish badan waa qorigiisu laba hal oo beekay ma israacinin ninku markuu ridana laba waayeenba ninku shish ku qabta nin maligi galay ninku Ilaahay ka qariyo qoriga beekay amkuugu toogashada ku galaya hal buu ugu toogani ninku markuu ridana waa nin maligi galay ninku xabad ku rido kolkuu rag badan ay xabad kaga dhacday kala carartay oo farqihii iyo geedaha hoostoodii iyo anagii wanoo kan shaweedeynayna toogataana markii waas ka jeexay qoladii ugu horeysay leexiyay oo banaanka u baxday يعني دب سوى دجال قال له إنه حارتي بأنه قفور كي سوى دجالي إذا كويل كي مركو كرابي حاش نبور كي مركو رنكاجي شيء كيني يمرها أقول له حدا بعيسنا يضع عارت كنا عدا عيس وينبر كجاي يبي دبر كسول دبر تبيه سوى عيدا وات ونوجو وتو وسوى شيء أنا برتن كده سوى شيء وواحد كله ينكرم حكي فرق كده كسر فرق بعيد كحاجة دم كسوى قاري مركي أنت هسد عضي دوش وجه إحنا أنا وحنا قدام عمي أنا قلنا كل كم ذها wiil la oran jiray naftuure Sadaam la oran jiray xabad inaga dhacday Sadaam markii xabadu ku dhacday wiilal baa ag joogay way qaadaan bay damceen ninkii shiish baa hayay qori sanay fara ninkii ku foorsado maradiisa ku dhig anu markii dambe waan dhaafay hortooda intaan difaac ka galay baan ku warqaada wiilka oo anigi geed aan dhagax aan ku hayay lowga iyo dhagax xabad ku dhacday markaas dhagaxii baan gudaha ii galay lowgayga galay adugu mar dambe aniga nin la dhaho Axmed Maxamed Siyaad Axmed Deere يعني تان وضع هذا اللي واسنا حاجة بيجي دم وصور ده أنا واسمع قارك دماس لقبنا ولا بود لأن هذا صور أفريقي يقول دم بيسي يسوي تشوجا أو اسنا اللي هذا أمين عرت يا نلاقبتي كير أو صب أو يرى أو الما يرى هانا ونراعي وحنو سن هذا بقول هذا معمول كهيدي يسكارسين تي يودين كوريسي كارسي يقول كان داوعة صح يقول كان داوعة حالة سواق هذا الناي iyo maxaan ku dhahay kan iyo wixii iskaarsiinahay qalab iyo maamulkii iyaba kulkaan naga dambeeyay waxaan sinir u geeyay waanu weynaado waad kala lunteen waan kala lunay anagii meesha xabad ka socodsi kuma soo noqon karo ninkii dhaawaca kuma soo celin karo qoladii horena arki weynay markii dambe waxay noqotay inaanu meesha shalay oo kale aan ku dagaalanay yani meesha aan baa ugu yeersalan xageedii
aanu noqonay leeyahay hadda dagaalku ka dhacay buu cadowga isugu imanay saddexdanadii ka yarkii waxba nooma qaadi kara saddexdanadii wiilkii baan la oranay tu far badan oo socoto gaala kale oo aad far badan oo meel kale ka timid baa naga hor timid waanu ka gabanay wayna dhaaftay wiilkii adugu meeshii aan maalinkiis kaga haysanay reero reemiyo oo meel deganaa yaanu dad rag ma raaci kara xoolaha in la laayaa laga raabo haweenkii iyo gabdhaha iyo kurayga yar yar iyo wax xoolaha la raacsan adugu waxaan aragnay dad geeda saarsaaran oo raxan macadowba ma wuxuu yahay adugu waan aragnay inay gabdho yihiin dadkii xubna ah adugu reerkii waxaana loogu doonay saad iyo nacf iyo xoor dameer baan habeenkii ka soo marka waxaad tihiin afar nin baan oo mid yar yahay waxba qaadi karin adiga lagu waxa kaaga yaala dhaawac bayga yaala laakiin saalan yahay laakiin oo kolka wali maana halftii baan ma dareemin wiilkii habeenkii waanu soo qaadanay meel baanu gelinay amin hiraabtiya saddexdii labadii wiil ee kale yaanu nirkii yaraa iyo midkii kale dhaxwaan yar awr ma haysan awrta reerkan wada qooqnaayeen intii aanu saarnaa anaguna ma qaadi karo casarka horena dagaalkii ugu weynaa baa dhacay oo casarkii nin macallin ah oo tababaraha oo Allah sahla loo oran jiray Cabdi Yusuf inuu ahaa baan hebel Yusuf magaciisa Ahmed Yusuf Cabdi Yusuf oo salaxadaha oo macallin tababaraha baa wuxuu arkay casarkii rag dagaalka naga haro fara badan bay hayeen waxay arkeen isagoo raadiyo dhageysanay wuxuu yiraahday haba la kala qooste galabta inaan Itoobiya salaaf fiicnaan lahayd waa maxay baa la yiri wuxuu yiraahday iyagoo og inuu gurmad inoo imanin oo rasaas iyo hub la nagu caawin galabtana inaan salaaf fiicnayd حسين لبا قوسته سي uba qoosataba oo wiilashi kiirsanay shanta lagu yiri shan bay rag wataan xirkaalka ku watay haba qoostaan bil iyagoo og raadkeena hayeen gurmad kale noo imanin inaynu sahlo ilaahay amarkiisa bilaantoodii aragtaarta markay soo dhaadhacayeen raadihi filmbiska idaacada Itoobiya dhageysanayeen sagaalka galabnimo tii dhabar jibinta ay u dareen bay raadkeedii arkeen war kala fadhiisto cadow baan ku dhex jiray saadii loo kala fadhiistay anu goob joog ma waxa la sheegay Allah sahla beela u yeeray oo taliyay qaybta wuxuu ku yiri kaalay alla sahlo oo yeeray wuxuu yiraahday bal raadkan qiimee caleenti dhacday ee cadowgu dhinaca ugu jiray caleenti qoyaneed bas u qaaday cawskii buu fiiray wuxuu yiri cadowgu inagu noo kala baxay waynu ku dhex jiray ragga kala gari difaac waxa gacdaadayga la naga qabsanay ilaa cadowgu xaga cadceedu jira tan dhabar jabintaana dhinaca cadceed ka soo baxaysay la casar bay ahayd yaa la idinku dhabar jabiyay hadalkii afka la isku hayayba qoladii rugta ahayd ee maamulkii iyo golihii dhexe iyo golihii soo wada socday oo meel fadhiyo cunto ku karsanayeen ba wiilkii waardiga ahaa yargor diyaar loo oran jiray oo hadda Ismaaciil lagu dilay oo hawsingo dagaalka ugu dambeeyay ku dhaa isagoo maamulkii ciidanka Jubbaland oo ku dhintay oo gordiyaar loo oran jiray waardi ahaaba يا حبدي dhacday bay ku baraareen kuwana ma yada way ogaayeen ba way difaac bay kala galeen tii hoos fadhiyeen nin kamid oo rag nin kamid ah arkay cadow ay ku dhex jiraan ba cawska dhex jiif barwaaqay ahayd kiina labada xabood isku mar wax yar bay kala horeeyeen adugu ballaaratay xabadii anagu waan maqlaa garirka sababka intii la isku rido dhulka ku dhaco afsaar markuu yahay moogtay ma qarxayo dhulka intuu ku dhaco hawada aad mooso hawada ku qarxay sannow ilaa ragga waa la isdhex galay ma wadan arnaa bil tunka koreeyaan saaranahay wixii moodi era ka tarin ragga rushaynayso wax weeyino hawada ka qarxayo ruuxan muxuu ahaa adugu waan ogeey dagaal weyn oo meesha ka dhacay hiraabti markay tahay wiilkii wiilashii kala kun labadiinu la jooga labadanadii kaleete aniga Axmed Deere Maxamed Siyaad labadanadaas soo baxay waxaan niri meel cid islaan jiray iyo reer iyo meelan awr ka hel iyo meel jabaad ka hel aynu aad marka wax cunta warkeeda sheegi ma kolka ana wax ku roonay xal oo kaleete waanu reerihii caana ka helay laakiin subaxan markaan soo tagayna wax naafiya ma haysano macluumaad xalay laakiin xalay baanu in caana helay oo wiilka dhaawacayaan ugu tagaynaa anagu waxa maana qaadanin wixii xalay aanu ku yargaajo baxnay mooyeen wax kale ma jiro waan iska wadanay labadanadii baan soo tagnay waan iska soo soconay ilaahay amarkiisa waxaanu soo galay meesha shalay lagu dagaalamay casar laftarkeed la dagaalku isla balaadhay moogta oo dagaal weyn buu ahaayo ilaa 9 saac markuu bilowday ilaa fiidkii baxbadu dhacaysay maqribka wala isla dhaafay aska madoobaad anagii waan iska soo baxnay meeshii raadka anagoo wara meeshan xabad ba ku dhacday war meeshan muxuu ahaa iyo ugaadh yaacay ma soo dirdirtay war ugaadh leen gaalo meeshii iyaduna iska fagaagaysa oo gurmado meesha timid uma waxay aragtay umaan bilaanteeda anaga kale leeyahay
waanu faraq meeshan aan xullay waanu dhabar goynay waan iska daba maray xabad maana ku ridin markaanu sii goynaynay bilaantanadana aragtay way dhawaaqday anaga xabad maana ku ridin waan iskaga baxnay tukalaan u galay hadana waan ka gabanay ilaa 4-5 gaala baanu kale ilo horeeyay oo na arag intaanu sii soconay boora yar oo dhana gaabyada ee loodan dargaamka ugu bidixeeyay oo xira qurux la yiraahdo baanu afka hoose iskaga jiidnay intii hore laag ba iska xulanay dhuuxeed tadargaanka ka soo dilaacda hal socota reero iyo riti aan wiilkan ku raran iyo jamaad kale wiilkan ma qaadi karo saddex nin baan u nahay nin aad u xoog badan oo laf laho ciidanka elitri lagu soo tababaray oo nin weynana uu ahaa oo nin dhalinyaro aan ahayn kuray aan ahayn maba dhulka kama hinjin kartidba riti iyo xoog kale iyo waxaan u raadsanaynaa waan soo tagnay oo casarkii markay tahay anagoo deydeyno oo waxba weyne oo reerihii milkan ku ogeyn laga kala guuro xabad iyo dagaaladii dhacayo yaan ilaahay amarkiisa aanu dhaqaaqo waa wiilkii oo baasha way barartay lowgii baa wuxuu igu bararay inta in leeg wuxuu yidhi balgeedkan iska sii hoos jiif oo halka ku jira ducada kugu imaada nasiibkaaga haddii kale tana bal ana isla duurado wiilkii uu reeyday soo socdo imaada wuxuu waxba waaye wax gaadiid iyo wax dada midna iyo jamaad bay reero kale oo meel kale ku ogey walaan raadino raysid nuura reerahaas inuu aadaynaa aniga markii lugtii uu idariigay uu ii jamciyay uu celceliyay uu ilaahay amarkiisa waa nafisay markaan nafisay waan iska soo soconay iska soo jiitanay amin habeenimo fiidkii ah baan reeraheena reerka markaan imaadnay wax awra waan ka weynay awrtu wada qooqan yihiin dadkii cabsi baa hayso aqalka lama furi karo aqalka hadii la furo dacadowgii baa arki geedka 30,000 baadee dagaaladan dhacayn intuu gurmad iyo dhaawac helay isleedahay markaasaa 10 daqiiqaba ciidan hor la bilaantooda arki kii horeed aragtay aan ahayn horle wareedkoodu saas u daba maraya xagga u kac waa daad ku xagga u socday midka daba maray iyo ka dhankan u socday dhanka jaha walba waa isku mid xilliga markii ka horeysay ma dhici jirin ciidankoodii kale raad qaada raadku markuu maro meeshan cadowgii kale waa la sifeeyay hadaba meel kale garab gali jireen kuwantii hore raadkeeda qaadi haddaad raadkan hadda la maray fadhiisay isnaadatii ku dhaaftay tu kale ku soo gali ama tu dib u qaadaysa shandadii bilowday ay garaanto halka baturinayso waxaanu sameeynay waxaan hore ahay war Axmed Maxasiyaad aabahay iyo aabaha midkeedu meeshu degan yahay aabaha xagee degan yahay ku ogeed meel hebla labadana aabaha kolka marta way baayay degan yahay korkeeda wadno walba deegaankiisu ka soo cararay abihiina gomaar iyo birqod iyo halkaas ka soo cararay iyo gorgaan aabahina sheekoosh iyo barta iyo ka soo cararay labaduba waxay degan yihiin marta way baay iyo cusbaleydan iyo deegaankan ay degan war aabaha baa sokeeyay way aabahay meeshu waan ka oranay fiidki habeenkii reerkii baanu joognay waa awra ka weynay maalinkii dambe ka tagnay maqribkii fiidkii baan reerka naga tagnay aabahayo awr waxa la dheelmayay geel hala ka haray iyo wax soo soo horbaxay reerka ka soo baxay yaan ka soo horbaxay balaba warna fiican war ma nooshayo jamadii dhaawac watay iyo qolyo badan baa maray adruwaagi oo dhaawaci iyo beeli iyo qolyo badan oo yaa fara reerka marayo reerka looga sii raashin kariyo si maray waan salaamnay oo balwarna fiican oo nabad qabta oo ma fayowda iyo khayr weeyano waxaanu niraahnay waxaanu ka rabnaa riti iyo saad niman marti ah u joogo kolka raashin loo karinayo wajibada oo meesha shacaba oo socota waxaan niraahdaa saadna waa nacfina waan ka rabnaa ritina waan rabnaa wasala awrti gaaladii baa kaynta fadhido dhaxdaaqayaan cidna ma aadi karto qaalmo yar yar baa joog sana qaalmo 7 jir gaadhay soo ma joogan aha midaan cabaad inoo soo qaban ku niro oo leheen qaalin yar oo 7 jir aan loo soo qabtay islaan duqadeerkii oo carruur dhashay iyaduna qaraabada una hayd baa aqal gabadheena layaalka aqalkeeda lama taabto waxaan dabcay aqalkii in loo furo oo aqaladan kale reeraha aqala waaweyn uma dhisno aqalkana reer noo noqon awrka labada dhinac intay hararadu ka galaan iyo wiilka dhexda la saari salaanta sodooda waxay tiri aqalka gabadha lama furi karo aqalka furan hadii la arkana cadow baa xageed geesay ma nala dhihi hooyo idaayo aniga hadaba waa qaraacmayba anade saaxiibkay oo dhaawac geed hoosti kaga yimid iyaduna gabadheedayba la xishoonaysa ninka gabadha qaba inuu meel qaawan u seexo
أنا مير لابا دور صوم بنتين قرقي كفر تبان كوري فر عن هذا قعنا ناين روح أنا أقل كفر ماي أنا قلت كاي وابان ما قرني نبى مرة تقول الله اللي يوعى كوري من نبا أقل كيف على فري هواكي كلا صور دور تقول هدي للورا وحويان حوي وهذا غير أقول كي خاط أقل كيف على فري ارتجي بالنور هراي خياشين قل لي أو فرب بدن ولا ما كان صعود هذا لو كرني يعني لو قلت رجع عاني إياه خياشين كلو بريس ودربنا لو جالسين على بعض النادي نحفي بنا لقدر جي ارتجي بالنور تقص خيار كي أنه حالة شغني يعني هبين ما تكني هدي هبين مال نقطة ما دقائق تدو هبين كاون ارتجي وانو فري قبل أن نبدأ من الرياض كنا المعنى راعة وحنا نقول معنى التيرسو يدبوك ما التيرسو يعدنور سو يعني هي إنه روح كلا لسعودة وانويل كلا لسعودة في الأيام عضو ضد أو روح وعيدا كجماد ميش جوان نقول معنى قل يا كلا أو داوع كيمد أو يجونا داوع ميلهن خيارهن نعرف أصلا دون داوع يكلا ميلها كجماد يعني يجنا ماشي سوون معنا عيدن كوحد مركب ماشي ونقطين رك دورة لكن نول بدأ داوع بقى ويا لسمع عونك أنا قريت كنا يقول حبنا نكون العصر كده بفرط قبض لبعض النادي لما بقولوا برا نوضنا وضدي بان أفكار قريت شبس يقول كل واحد غني مركب والبيت ونصيب جوري قبل كان وضع يبي كده ما صيب جوري يبي كده ما صيب جوري أم من هرابتيا يعني ويلكي أو يقولش اللي تشوفه مانته تيجي ما بعنا فورم بس لما مركب شاير يا سنكر راشين كان وذا النبي نلعنه ونفير كسوق قادنا والسيد يتانو الله يرينا وحبنا نقولن أنا وذا النبي بانوسينا راشين كي وحي يوم نقول كورا هير كان يشوفان با يجيل ماشي جيل يمين عن قاعد متش اللي دوجا ده هاي خيرنا ماشي لو كعر مويه مركب كعر مويه باهي متش تيجي بانو ويلكي سو صار markaanu dargaamahii ku soo baxnay iyo salaada dhactay qoriban u tukanay u gabagabeysanay lababa mar afartanadii iyo wiilkii irtiga faruurta noo hayay labadana anoo laba aniga aamin carte baa hore u dhaqaaqay waxaan irtiga wiilka dad irtiga la bixi weedaan irtiga toogta si aan irtiga sumadiisa dad kale loo ogaan irtiga dila cadawga meelaha uu warwareejinin wiilkan intaad ka dejisaan wiilka tunka saarta anagu roodi kaga ridayna cadow aragnaha cadow idin ma soo gaadhay in labada nad bushiidna mooyeen waa maalinka qalbigayga de kollaba dargaamaha oo iftiin ku soo hagaagtay baad cadow waay isma oran markaan karin dargaamada ururta dhexdoodan mareynay iyo dargaamadan kale kala dhexdooda karinka markaan sa ugu soo hagaagnay yaa meel kasta oo yaa wax qalbigayga waxaan ka maqlay ruux ila hadlaya qoomaal kasta cadow baad ka aragtaa waxaan isdhiisho cadow waa kula hadlayba dareenka kolka aanay naftaydana cabsiga ma hayseen ninkan aan wadano ee dhaawacay jaban wili ma jabnayna lugtaas intaas la baxday lugto laaba mid halka kaga dhacday iyo halka ka baxday markaas inta muruqa weyn bay la baxday iyo seeda dadkuna ogow haday lafta jaban baadhan seedaha laga seedaha ugu daranha dadku seedaha aadamu seedaha ka dhaqaaqan seedihii baa go'an wiilkii wadba karankii baan ka dhacnay waxbaan weyn wax badan ugu soo dhacday wax cadawaan weyn waa iska soconay meel dhexlaabaan tigis kaga furanay laba wiilkii xubinka ahaa iyo laba wiil oo kale meeshii bay irtigi kor joogan ku niri laba anagu midna raadkii buu fadhiistay midna dhanka kale u fadhiistay asar gaaban markay tahay baa irtigi raran wiilkii baan u saaray aniga iyo ninkii loo oran jiray Axmed Deer Axmed Xasiyaad baa hor soconay ilaahay amarkiisa garba meeshan oo biyo ah meel dhabiile la dhahan ku soo dhaadhaan kolka reerku noo muuqdo waxba nooma jira shangadhiis waan maqlaynaa reerka kolka targetka noo ee dhaawacyadii wax oo dhan la soo keenaan ku ballanay lama maanu ka nimaadnay markan dambe waxaan ku soo baxnay cadow hadda maray iyo geedka gelaha la dhaho oo ka dhaxbaxa biyaha dhaxdooda dibirka iyo meelaha webiga iyo oo ninkii biyaha ku farxashay ama ka cabay gelihii biyihii ka tifqaya gofo leeyihiin oo hadda ma wax kale fog ma ah biyaha hadda lagu shubaa oo biyuhu ayna tafiq leeyihiin waxaan aaminay markada marka ka soo dhaadhacaynay inuu cadawguna arkeen oo kala baxay oo gabiyadan ku jiro anigu hore aan u ordo markadii degta kala ahayd baan u jeexay wiilasha waan ugu canhadinay oo degtii bay ku istaageen Axmed Deer imaaday biyihii meesha igaga haray iga soo daba jeexay kolku iga soo daba jeexay in aad u calool adagna weeyaan oo aad gob ah
أحمد محمد سياد أحمد داير وحوي له هذي وعن كل ورا أحمد داير محمد سميناها أنا كل كا وحن كودا عدو جوين أركاي مدب بين ويلك ولا نقناها بس مركز قصور علينا بس مركز قصور علينا لقط أنتو صار لك أقول لفتي أو فرق الدوش ماشي الصباح حوله اللي جوه رتيرة هاي ده بور أو رباب بدن بهلا ساكين ده فردي خاص عصابة هذا ممكن عكس أقول لفتي يا وحوي له هذي والله اللي تقوله وقاعدين هي نشوفنا من نقول نقول بس حوالي فعكس صار لك أقول لفتي من نقول بس حوالي نبي وقاعدين نشوفنا بس أنا قاعد عبسدي يقول تكتم مركب ويقع بحر يعدو ويبان يقول الشيء بان وقع عن هذه الني مركبي بيسوي مرين مركز صوت شاحن ونسكت عن واحد بعض النصوص عشان قد شو ويدار يرتوي دحده حشة برات كذا نركض وناي دحده خاص شو نيكو قدام يوم ببيها إني واحد شو كفر حشمية ويبدار يرتيبه أنا جي واسكت عني خير كمان أنا أدينا مال ماشي دين عدو شو جمو جري خير كقربان وضعفني مال الله بان نفتي كفرني خير كي بانو سوء أني وسوء جرجورني خير كون وحبت شو جنا عدو شو جمان أرجني ويلشي كلا تحقيق شو جان هالكن رتجي بان خير كيس كأنه هرت أوسي ونرتجي قبل واجو جبريه ويلشي كلا نوع ماضي هبيني من نبلا قاعدين راوي كلين لقينا ده كان خير كتشوفنا وين أكيد كيالي waxaan noo imaaday beeli iyo qoliyo kale oo iyaguna xarunta ka yimaaday oo dagaalku markuu dhacay dhaawac xagga u bixiyay dadka ilaha oo soo noqday baa noo imaaday intii maamulka ahayd iyo rag waxaan isugu nimaadnay dhaawac aan u malaynayo 7 qaaditaan oo ninka cayal ahayn iyo dhaawac sahlan oo soconaya isu dhaxyaalay rag 7 ilaa adu rag 5 ka badan qaadis buu ah markaanu maalinkii labaad joognay baanu tashano waxaan niraahdo nimankiina maamulka ay gudbida ay golaha dhiciyo naga tagay idinku ordayo waxaad aadaan xarunti annagana intanadan ciidanka waxaanu samaynaynaa dhaawacan aan ku hadhaynaa awr baanu meelaha ka raadsanaynaa wiilashan waan soo talaabinaynaa oo nogobtan iyo dhinaca dagaaladu ka dhaceen waan ka soo talaabinaa ilaahaan soo talaabinaynaa laata bawa laata ooman waayahay bay dhaheen waxay nimankiina ciidanka ee maamulka ciidankiisa hal nin la raaciyo نما دعنا راعنا وحيد إن وحنا ربنا نقول كي يقانو ديجان كي يدك كي خلا جرنا يا أي كنت اللي مكان ما ملكا والصدح نينو قال لبن نينو قال دحا ما يصدح نينو قال دحا يو نما كانوا جدية نك هذه شرتين يدار شيء كردية أحمد الله وكل كان يرجع أحمد الله ويدانو يدمر راعي يقولش أنا كهريا نقوليه دعوة عيد بكهري أنا الراعيان وحيد هنا دول كي يودك يا كلا جرنا يه قوليه هنو ضياش ما ملكا raacdo waxaana la soo raaciyay wiilal soconaya oo dhaawici sahlanaa soconaya bana la soo raaciyay adii intii golaha dhaxay saraakiisha hogaaminta iyo wiilal dhaawac sax oo soconay waan soo soconay beela naga mida oo talihi qaybta ilaahay amarkiisa ma asar gaaban ma khibkii maray tahay umaano reero islahayn marka gobolkeedu dhacad gashaan iyo basho banaan Turkiga banaanka naga aragtayba iyadoo safar la ku soo socotaan anoo nagu soo socoto boor baan saaraynay dib baan saga dhaadhacno farq baan xulay mid kale aan isla laabnay reerihiiba dhabarkan kala wareegnayba gabalkiina uu dhacay iska soconay reer weyn oo habeenkii baan meel qoladii maamulka ahayd iska dajinay aniga dhabuuki yaa ka soo tagay waxaan soo aadnay reer xubnaha iyo jamaadaha oo gabdho laga qabay oo gabdho maxaan ku dhahay wiilal badan jabada kala socdeen oo dad ehel jabadeeda oo rag badan ka shiideen oo reer garbaaha oo reer weyn ah oo reer ehel ah oo reer Shaafi iyo kamid ahaayeen reer Ahmed Shaafi iyo reer dhiga weyn oo jira Cabdiraxmaan oo jira reerkoodii iyo adugu reerkii baanu nimaadnay ilaahay amarkiisa aqalkii ugu horeeyay ku soo baxnay buuka waardiga qabaan ku iri anna reerkan giliyay hadii xabadigu soo riday iga ridin yaro il banaan ay ahayd dhabuka banaanka ay fadhiistay ana aqalkii baan galay aqalkii saadan ula wareegayayba ruuxi oo horeeyeen u yaarayba wuu gartayba waa bishiida la yiri jugla soo galay dagaalka ku jiiday hormay waa noolahay adugu yimaado isla gabadha aqalka lahayd ardaygeeda lagu caweysimayay saada ay aragtay iska ooydayba soo kala la ninkii uu shahiiday oo maxaan ku dhahay dagaalkii ugu horeeyay ragii ku shiiday buu ahaa dagaaladii dambe oo muna nooleynba waxay noqotay ila dhaawac baan gees ula baxnay afartanadan war laga ma haynin dagaalkii inaan ku jireen baa la ogaa wiilkii adugu dhabukan oo mid anaga iyo dad kale oo xubna ahaa waxaan u baahnayn nacfi iyo saad iyo naloo keenay qoliyihii baan u tagnay waxaan iska karsanay habeenimo bankii talawnay
habaar waalid meesha kaliya ilaahay baanu talawnay habeennimadii maalinkii dambe baanu dhexda sii joognay qolya xarunta laga soo diray noo yimaaday dhaawicii hore beelli iyo bixiyeen ay dadka ilaahay geeyeen baanu tagnay sidii baanu ku kala badbaadnay